waftiga uu hoggaaminayey Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland maalintii labaad ku sugan magaalada Ceerigaabo ayaa waxay kulan la yeesheen Madaxda Laamaha Dawladda ee Gobolka Sanaag waxaana kulankan oo ka dhacay hoolka shirarka xarunta maamulka gobolka ee magaalada Ceerigaabo kadib markii waftigu warbixinaha wasaaradahooda ka dhageysteen Isu-duwayaasha Laamaha Dawladda waxa uu horeyn halkaas hadallo kooban ka soo jeediyay maayirka Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo Barasaabka Gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac soo dhawaada dalkeenii waa u timaadeen waa la idin sugayay waa la idin jeelnayahay cagtuna lagu badasaan loo baahan yahay inaan lagu soo noqnoqotaan baa loo baahan yahay aad iyo aad baan u xiisanaynaa waxaanu leenahay welcome margulaan saacadtu wasaaraa iyo mudnayaalba maanta sidaad ka warqabtaan guud ahaan gobolku aad iyo aad baan nabadiisu u fiican tahay meel kastaba waxbaa ka dhaca wixii ka dhacayna waxaan aad iyo aad u rajaynayaa shaqaaqadii yareydna ilaahay subxaana wa tacaala inuu sida ugu dhaqsaa badan leh nagaga soo gebagabayn doono xubnaha waftigan oo la hadlayay madaxda ay kulankan la yeesheen ayaa waxaa dhinacooda halkaasi hadalkiisa ka dambeeyey wasiiru dowlaha maaliyadda Dr. Maxamed Faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Boosmare wasiirka dib-u-dejinta Cali Reegal iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Somaliland Axmed Xaaji Cali Cadami waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dowladdaanu ka nimi dowladdu ogol baa horumarka u samaysan baa madaxweynaha ka nimi dadaalkiisu waxa ahaa inuu waxyeello qabto nabadgelyada gaarsiiyo madaxda laamaha dawladda isu-duwayaashu ay ka mid yihiin gobolka Sanaag joogtaan inay u baran yihiin dad weligood meesha iska joogaan cidna bedelin shaqada dawladana ciidadeedu waxa weeyaan ama dawladeedu in qofka la bedelo haddii kale wuxuu u qaadanayaa inaan ciidana xukumin meeshuu fadhiyo isagu iska leeyahay subaxu doonana furto subaxu doonana ka maqnaado maanta wuu balamaynaa madaxda laamaha dawladda gobolka Sanaag waa inay la shaqeeyaan madaxda gobolka iyo dawladda waa in la shaqeeyaan waa inaad kala shaqeysaan baahida gobolka taalla waa inaad kala shaqeysaan haddii taa la waayo dawladdu talaabo qaadaysa ugu dambeyntiina waxaa kulankan soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Cali Maxamed Warancade oo isagu waftigaasi hoggaaminayay gobolka qabyaalad baa ka waraysa horumar la'aan baa ka muuqda waxaa la doonayaa la rabaa in dadku uu walaalayo oo xumaanta laga dhex saaro oo boggooda burcad laysu mariyo oo waxyaabaha iyada ku dhex jira xumaanta ah laga masaxo sida loo xaado maanta wixii ka bilowda shacabka la xisaabtami maayo waxaa laydinla xisaabtamayaa idinka madaxda gobolka la xisaabtamaya hadduu shacabkaasu ka muuqdo muraayadda isagoo quraha badanna wanaageeda idinkaa yeelanaya haddii shacab foolxumi ka muuqdo muraayaddana ciirteeda iyo dhibaatada idinkaa yeelanaya Abdullaahi Xuseen Darwiish shabakadda caalamiga Wadweyne News magaalada Ceerigaabo